leeyahay saa'ilkan qofka waalan waan aragnaa adduunyada intuu joogo uu rafaadsan yahay oo dhibaataysan yahay hadduu aakharo tago muxuu xaalkiisu noqonayaa? alxamdulilah qofkaas iyo intii la midka ahayd aan fursad u helin inay xaqa fahmaan oy gartaan garashadooda oon joogin darteed sida da'waa yeeli ahaayeenba markay diini soo gaadhay oon garasho lahayn aakhare waa la imtixaanayaa la iskama cadaabayo caqligooda horta waa loo soo celinayaa markii aakhare la tago ilahi wuxuu ballan qaaday oo yidhi qof aan xujo lagu oogin lama cadaabo wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuul ilaan rasuul u soo diro ana xujada lagu ogay rasuulka waxaa loo soo diraa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul aakhare markay yimaadaan fi xadiid alaswad ibni sariic radia allahu canhu ardaa way dacwoon doonaan aduu isagu ka mid yahay qofka waallah wuxuu dhihi doonaa rabbiyow markii rasuulkaagu yimid ee xaqa dadka soo gaadhaya garasho maanan lahayn caruurtaa kabaha iyo daasadda iyo koobooyinka ila daba ordaya markaas waxaa laleeyahay hadii rasuulka lagu soo diro ood caqligaagu jooga ma adeeci lahayd markaasuu yihi haa hadda anigaa ku amraya adeec baa la odhanayaa waxaa lagu imtixaanayaa biyo meel kulul iyo meel qabow sida muuqata ta kulaylka u muuqatae naarta u muuqataay waa qabow hoosta ta qabow hoosta u muuqatana waa dab hoosta tii dabka u muuqatay baa laleeyahay gal qofkii adeeci lahaa rasuulka haddoo rabbi toos u farayo dalaq buu dhahayaa janna u noqonaysaa ahlu janna u noqonaya marka qofkaan adeeci lahayn rasuulkana wuu soo kala jiiraynayaa rabbi hodi cadaabu maan ka cabsanaye war rasuulka waan adeeci lahaa soo imaada dhihin haa gal isku tuur hadduu diido waxaa laleeyahay dee anigoo ku amrayaaba diidan tahay ee rasuul aan kuu soo diro waad kasii daraan lahayd gal naarta dadkaa la imtixaanayo buu ka mid yahay isagaa iyo ahlulfatrihi aan diinba gaadhin iyo qofkii waa yeelaya isagoo kharfay ay diintu timidan caqli lahayn iyo dadkaasay ka mid yihiin oo xadiidku uu ku tilmaamay arbacatun yaxtajuuna cala allahi yowma alqiyaama afar ilaahay bay xujo iyo dood ula imanayaan maalinta qiyaamada kan isaasuu ku doodi doonaa xalkuna imtixaankaasuu noqon doonaa in ka midana imtixaankii way adeeci doonaan jannay geli doonaan in ka midana way diidi doonaanoo naar bay geli doonaan wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayran khayra aljazaa غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن